أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لا يا السلام يا مرود بدك كجوتي روحاني لهاي وقتكو هيدي المعنى انت كدب كسر هذا حلقة المانتا أما موضوع المانتين اللي وذاقيو وعنوان كيسو يهي آمن نفتاضا فريمها أما مواضيع أنك قاهد للجنال كان run ahaantii waa iska mawaadiic ama hadalla iska dhiirigelina oon jeclaaday inaan ila wadaago waana hadalla inta ugu badan aan naftayda ku dhiirigeliyo ana naftaydana u sheego mar walba haddii aan bini aadan nahay walaalayaal waxaan ku mashquulna amaan isku daalinaa inta ugu badan inaan dadka aan nolosheena inagu xeeran inaan mar walba ka fikirno oo nidhaa intee leeg baan qofka aamini karaa, qofka ma ku kalsoonaan karaa, inaan marar badan aan isweydiino ayaa dhici karta. laakiin marnaba inagu ma ka fikirna ama ma isweydiinaa intee in leeg ayaan naftayda ku kalsoonahay, intee in leeg ayaan naftayda aaminsanahay. ma isweydiinaa marnaba. nafaheena sama aaminsanahay iyo quduraadka ilaahay ina siiyey nagu kalsoonahay. waa arrin in la isweydiiyo mudan runtii. marka aad adu naftaada ku kalsoonaato eed adigu noqoto qofka isku kalsoono is aaminsanoo thiqa ay ka muuqato ayaa dadka kalena ay kugu kalsoonaanayaan. horta taa waa inaad maskaxdaada gelisid. dadka kale kalsoonidii kugu qabaan intiina kugu kalsoonaan waxa ka horeyna adu naftaada ku kalsoonaatid. haddii aad tahay qof isaguba naftiisa ku kalsoonayn, naftiisa aanan aaminsanayn, way yaraanaysaa inay dadka kalena aaminaan. naftaada ma jeceshahay? naftaada inaad jeceshahay maxaa caddaynaya? dad badan baa u arka dadka inta badan naftooda ka fikira ee waxa qurux badan iibsada ee meelaha ugu fiican tega inta badan naftooda ka fikira. dad baa u arka yani dad selfisha yani ama dad anaaniyiina oo naftooda ka fikiraya. laakiin maaha, xaqiiqatan maaha. waayo wax walba waxa ka horeeya horta inaad adu naftaada ku kalsoonaatid oo naftaadana aad jeclaatid. automatically taas waxay kasoo baxaysaa ummadda aad la dhaqmaysid ay kasoo baxaysaa. inaad naftaada ku kalsoonaatid aaminsanaatidna waxay keenaysaa inaad naftaada jeclaatid. garaale ahaada waxaan mar walba isku daalinan madaxeena ku mashquulinaa sin u raali gelin lahayn dadka inagu xeeran, sidan wax ugu qaban lahayn, sidan xuquuqdooda uga soo bixi lahayn. mar walba maskaxdeena ay ku jirtaa inta ugu badan. laakiin waxaa laga yaabaa inay yar tahay inaan isku mashquulino sida nafteena u raali gelin lahayn, sida nafteena aan dee u aamini lahayn in wax ugu qaban lahayn. waxaa laga yaabaa inaad waxaad adu xataa naftaada horumarka aad doonaysa inaad gaadhid aad u rabtid inaad horumarkaa gaadhid because waxaad doonaysaa inaad ku raali gelisid ama inaad yani wax ugu qabatid dadka adi noloshaada ku xeeran ama ka midka ah. hadday ay tahay awlaad, hadday ay tahay family, waalid, hadday tahay cid walba oo noloshaada ku jirta. inta ugu badan saasaan ku fikirnaa. laakiin haddii aad naftaada uga fikiraysid you deserve to do this, naftaadu way u qalantaa inaad waxaan samaysid. naftaadu way u qalantaa noloshan ee samee. automatically wanaaga aad naftaada u sameynaysid waxay kasoo baxaysaa dadkaagii daaminis iyagii baad wanaajinaysaa. laakiin imagine haddii aad maanta dhan aad adu noqoto qof waxba qabsan karila, waxba focus garayn karila, caqabado badanoo nolosha lasoo gudboonaaday ay ku adkaadeen siduu uga gudbi lahaa. ma u malaynaysaa inaad wax u qaban karto dadka kugu xeeran noloshaada ku jira ama dadka noloshaada ka midka ah ee laga yaabo inaad naftaada ka jeceshahay? laga yaabo inaad wax u qaban karto, waxba uma qaban karaysid. xuquuqda ay dadkaasi kugu leeyihiin bay naftaaduna kugu leedahay awalan. waayo waad isku xirantihiin. wanaagaagu
waa wanaagooga. Aduu haddaad wanaagsanta iyaguna way wanaagsanaanaya, laakiin aduu haddaanad wanaagsanayn certainly waxba uma qaban karisid iyaga. taasi waa xaqiiqo jirta weeyaan. nafteena aan jeclaano, nafteena waxay jeceshahay aanu samayno ina macsiyo ilaahay ahayn. nafteena say ku fiicnaan lahayd, si horumar ku gaari lahayd, say wax kastoo la soo gudboonaada ay uga gudbi lahayd, mar walbo inaan maskaxdeena u sheegno. adayga nolosha lagu sheegina maaha inaad weligaa taagnaatid oonad weligaa dhicin. yacni weligay dhibaata iguma dhicin maaha, oo yacni qof adag baan ahay maaha, ama qof dhibaato u nugul ma ihi ma aha. laakiin waa mar walbo dhibaato kugu dhacdo oo ama aad niyad jabtid ama ay dhibaato kale kugu dhacdo, waxay doonta ha noqotee, waa inaad kasoo kabatid. adayga dhabtiina waa kaas weeyaan. qof kasoo kabta haddii aad noqotid waxaa tahay qof adag, laakiin qof dhibaatadii ku dhacday kasoo kaban kari waaye haddii aad noqotidna waxay ka dhigan tahay qof adag ma tihid. waxyaabo badan oo ilaahay nagu manaystay baa kamid a nolosheena, nimcado badan. waxaa kamid a yacni nimcada ilowshaha ayaa kamid a. maanta hadday wax kugu dhacaan muddo kadib wixii waad ilaawaysaa, isma odhanaysid waxaasa xataa kugu soo dhacay, xataa ma xasuusanaysid. you keep moving on. waxay kamid tahay xikmadaha ugu waaweyn ee nolosha. example ugu yar haddaan ku siiyo waxaa kamid a umusha oo kale. hooyadu markay ilmo umusho, xilliga ay ku jirto dhibaatada umusha iyo xanuunkeyga iyo rafaadkeyga, niyadeeda waxaa ku jira ilmo dambe ma dhalaysid ama ilmo dambe ha dhalin. laakiin waxaa laga yaabaa after few months inay haddanaad aragto yacni hooyadii oo haddana ilmo kale caloosha ku siita, because way ilowday already xanuunkii wixii soo maroo dhan. ilaahay naxariis buu ugu bedelayaa, because noloshaasaa ku soconaysa. haddii kale nololima socoteen, dadku ma tarmeen. dii hooyo walba ay halkaa kaga tegayso ilmo markay umusho ina dib ugu noqonayn in xanuunkii foosha lama tarmeen, adduunkuna ma sii socdeen. laakiin waa xikmad ilaahay ugu talagalay qofka maanta kugu dhowda ugu jeceshahay hadduu geeriyoodo, waxaa laga yaabaa inaad hadday ugu badan tahay bil inaad sii murugaysnaatid ood kadibna aad ilowdid. markaad xasuusnaato niyadda waad ka naxaysaa markaad xasuusatid, laakiin noloshaadii ma joogsanayso. walwalkii markii ugu horreysay iyo murugadii ku qabsatay kuma qabsanaysa, haraad uga sii soconaysaa. waa xikmadda noloshay ka mid tahay, waayo insaan baan nahay. insaanna ilowshay ka imatay, yacni ilaahay baana inoogu talagalay, saana inoo abuuray, waana xikmad rabbaaniya. marka fariintan maanta aan soo gudbinay waxa weeyaan, noloshaada ku kalsoono, naftaadana ku kalsoono, ina isna jeclow. intaa in ka badan na insha allah mawduucan waan kasii hadli doonaa. intaan dib ugu kulmayno waxaan ilaahay intaan fariintan ka tirsan aan dib ugu fariintan oo kale lamida intaan dib ugu kulmayno waxaan ilaahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.